السلام الله عليكم داوديال halkani waa telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada wararkeena qodobada waxa xilligan ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gaaray magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kadib casuumaad oo ka helay madaxda dalkaasi Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay wararka sheegaya in rag ka tirsan Daesh oo ku xiran xabsiga dhexe ee Muqdisho ay dhaawaceen in uu dhashay Britain oo ku xirnaa xabsigaasi caruur qoysaskoodu ay ka soo barakaceen abaaraha ka jira gobolada dalka ayaa nafaqo darro ugu geeriyooday xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka Muqdisho ahmiyad inta leeg ayay u leedahay Puntland caleemasaarkii madaxweyne Dani iyo natiijadii ka dhalatay kulamadii madaxdu ay ku yeesheen magaalada Garowe dhinaca wararka dibadda qodobada aan kaga haynana waxa ugu waaweyn madaxweynaha sharciga ah ee dalka Venezuela waxa uu ku dhawaaqay in uu dalkiisa ka badbaadin doono afgambiga uu la damacsan yahay Mareykanka isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale waxa daawateen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu waaweyn oo diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre ayaa maanta gaaray magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kadib weeraradii isxigxigay ee Al-Shabaab ay ka geysteen wadankaasi faafaynta warkan waxa soo koobaysa wariyaheena Farxiyo Muraan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Kenya ayaa Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa waxay ku soo dhaweeyeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa casuumaad rasmi ah wax uu ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka iyo wafdigiisa markaasi ay la kulmi doonaan madaxda dalka Kenya iyadoo oo la sheegay in Ra'iisul Wasaaraha uu la kulmi doono madaxweynaha dalka Kenya si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo adkeynta iskaashiga la dagaalanka argagixisada ee ka dhaxeeya labada wadan iyo sidoo kale sidii loo sameyn lahaa istiraatiijiyad lagula dagaalami karo argagixisada Ra'iisul Wasaaraha safarkiisa ayaa waxa ka hadlay safiirka Soomaaliya oo jooga dalka Kenya Maxamed Axmed Nuur Tarsan waxaana uu ka warbixiyay socdaalka Ra'iisul Wasaaraha maanta uu ku tagay Nairobi waxa farxad weyn oo ah aniga oo safiirkii Soomaaliyeed ee Kenya iyo bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan baa in uu maanta noo yimid siyaaro rasmi ah inuu Prime Ministerkii noo yimid Xasan Cali Khayre ummadan Soomaalida ee dhulkan ku nool aad bay farxad ugu tahay inay la kulmaan Prime Ministerkooda wuxuu ku yimid invitation rasmi ah ku yimid wuxuuna la kulmayaa saacadaha soo socda madaxweynaha Uhuru Kenyatta taasina waxay astaan u tahay xiriirka weyn ee sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambaysa ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya Kenya wadan aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasadeena arrimaha dibadda weeye asbaabo gaar ah oo jira dartiis asbaabaha waxaa ka mid ah marka ugu horeysay xuduud inaan la leenahay xuduudkaasna inuu tension ka jiro oo security issue arrimo ku saabsan security-ga shabaab inay maaragtay meelahaas ka dagaal gasho oo ama Kenya dhibaatayso ama annaka dhibaatayso ama shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda ama xoololeyda ay dhibaatayso tan labaad Kenya waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah aad u xoogan oo ganacsato ah oo runtii ganacsi xoogan ee ka wada wadankan haddana waxa weeye Soomaali badan oo wadankan Kenyatta u dhalatay oo haddana siyaasadda meelo fiican uga jira waxaasoo dhan waxay keenaysaa maaragtay xiriirkeenu inuu noqdo xiriir gaar ah oo muhiim ah oo xoogan inuu noqdo annakana waxa weeye inaan sii xoojino weeye maantana tilaabay u tahay xiriirkaas in la sii xoojiyo siyaaradan uu ku yimid Prime Ministerka Khayre waxaan filahayaa marka inuu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysan doono xiriirka dhexeeya dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waxaan rabnaa waxa weeye sida hadda muuqata ganacsi baa naga dhexeeya laakiin ganacsigu ma dheelitirna waxaan rajaynaynaa in mar
shir baa ka socda hadda maanta iyo beriba oo JCC la dhaho. Shirkaasi marka waxaan rajaynaynaa in lagu soo qaadi doono qodobo badan amniga iyo lagu soo qaadi doono dhaqaalaha iyo maaragtay ganacsiga lagu soo qaadi doono. waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waxay ka mid noqotay ECOWAS ururkan ay ka mid noqotay in faa'iidooyinkooda in ay caanamaasho faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah inay wadamada ku jiro dhan ay Soomaaliya waxay rabto geyn karto. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxaa kulanka uu la qaadan doono madaxda Kenya looga hadli doonaa arrimo dhowr ah. Farxii Muraad, Dalsan TV, Muqdisho. ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay markii ugu horeysay ka hadleen wararka sheegaya in nin u dhashay dalka Britain oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee Xamar ay dhaawaceen rag ka tirsan Daacish oo ku xirnaa xabsigaasi. taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdixakiin Cali Afrax oo warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay wararka sheegaya in nin u dhashay Britain oo u xirnaa dawladda Soomaaliya ay koox ka tirsan Daacish oo ku xirnaa xabsiga dhexe ay dhaawac u geysteen. waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in ninkaasi lagu dhaawacay xabsiga dhexe. halkan wax dagaal ah oo ka dhacay ma jiro, wax la qalay iyo wax la dhaawacay ma jiraan. waa jiraa nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta, 2 jiisadoo haysta, Faransiisna waa haysta, xabsigan oo ku xiran yahay. waa ninka maalin dhaweed laga soo qabanayay aeroboortka. waa bed qabaa, waa caafimaad qabaa. waxaa looga shakiyey qolyo Daacisha oo xabsiga ku jira tashigooda inay aan dilna ah oo propaganda ah. iyadana uma suuro gelin oo waa laga hortegay informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu oo u diyaar garoobay. wax gaaray ninkaas ma jiraan. lafihiisa ayaa la idin tusi karaa hadda ood arki kartaan. hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bed qabo. looma baahna waxaan jirin in la sheego oo Ilaahay xaggiina dembi looga galo, dalkana dembi looga galo, ciidanka gacanta ku haya maxbuuskaasna dembi looga galo. isagana waa addoon Ilaahay in been laga sheego propaganda oo jirin looma baahna. saacad iyo xaq iyo xalaasha wax walba ku fiican yihiin. waxaan leeyahay kuwa leh warka been abuurka sheegaya walaalow burburin iyo xumaan iyo kala dil iyo been sheeg dalkaani waa ka daalay. Soomaali dhagaheedu war xun iyo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur xiiso uma qabto. waxaa xaalado nafaqo darro ugu geeriyooday duleedka magaalada Muqdisho caruur qoysaskooda ay ka soo barakaceen abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka. warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Xasan Salaad Xasan Laki. wadada ku soo dhalo qof ee caawiyo maama wadada igu soo wade sidaan inta lagu soo geliyay maama nadiifo gudoomiye ah akaamkeeda igu soo xareysay dadkaamkeeda degnaaya guri igu caawiye saas cunugan 3 biro ii dhaleeyahay oo niga saqiir Xaliimo Axmed Maye waxa ay ka mid tahay tiro dad ah kuwaasi oo ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo abaar xoogani oo ku dhufatay ay sababtay in duunyadii ay halka waxyeello ku gaadhay, dadka qaarkiina ay la dariseen xaalad nafaqo darro. waxay miciin biday in ay u soo socdaasho gobolka Banaadir si markaa nolosheeda ay ugu maarayso. intii ay waddada soo socotay ayay halkaa ku umushay iyadoo dhakhaatiir iyo goob caafimaad midnaba aysan meesha ka dhoweyn. waxa ay soo gaartay kaamka Allafuuto ee deegaanka Garisbaalley oo hadda ay ku dhex xanuunsanayso. waxay dareemaysaa xanuun gaajo iyo mid nafaqa darro ah. 3 saacadood ka hor
waxaa geeriyooday ama ka saqiiray ubadkeedii yaraa oo ahaa kii ugu horreeyey oo curad u ahaa Xaliimo Axmed Maye. waxay sidoo kale la ilmeynaysaa inaysan meel ku ogeyn saygeeda oo ay soo kala waday xaaladda adag iyo duruufaha abaar oo keentay inay ka soo dhaqaaqdo balse xilligan aynan meelna ku ogeyn. wax walba codsanaya inay caawiyaan caawinaad aa ka codsanaya. waa gartay intaa soo socotay ma jiraa saygaagii inuu kula socday ma nool yahay? saygayga war ma ka haayi baadiya aaga soo tagay dhulka aaga soo tagay sidii dadkaa kusoo raacsaa nafteedu badbaadsada wadadii fool igu qabata marka wadada iskaga soo dhalay maamaa cunuga iga soo qabata isla jirne daawo iyo waxaa haasto male baahi way haasaa xanuun way haayaa iska dhibana. hadda waxay ka mid tahay ilaa iyo 800 oo qoys oo 3 maalmood ee ugu dambeeyey soo gaaray xerada Allafuuto ee deegaanka Garisbaalley oo horay ay ugu noolaayeen barakacayaal gaaraya ilaa 1,100 ka mida barakacayaasha. inta aan xeradaasi ku sugnaa gudaheeda waxaynu la kulannay qaar ka mida dadka waayeelada ay ka muuqanayso duruufaha kala duwan ee dhinaca abaarta. tani waa ayeeyo ubadka ay waalidka u tahay iyo iyaduba socdaal dhanka lugta ah meelo ka mida baay ay ku soo mareen duruufo jira aawadeed. deemay abaar biila'aan gaajo yaani keentay goobkan 3 maalmood berigan 4 waay. nadiifo xuseen maxamed waa haweeney iyadu ugu yaboohday in ceelbiyood halkaa ay ku leedahay barakacayaashu ay ka cabaan biyaha. tira ahaan waxa ay wadartooda wada gaaraysaa ilaa iyo 1,900 oo ah dad barakacayaala. xilligaasi intii timid ayaa goobta ku sugnayd. waxa ay sidoo kale sheegtay in ay waxyaabo dhaqaale ka mid yihiin ay dadkaasi wax ka siisay si ay nolosha maalinta ay u maareeyaan. magacayga nadiifo xuseen maxamed. maamada meeshaan anugu deganaa ceel iyo ku leeyahay kaamka anaa meesha ku sameeyey waa ilaahay dartiisaan isaga sameeyay. hadda waxna karaadsi isma dheheenin waa dadkaan anugu yimid agno tii hor la daalaa dhacayno tan ay timiday. shalay macalin meesha deganaa bariis u soo gaday sokor u soo gaday anoo i wacay bariyahan ma imaane markaas aan raashin u soo gaday oo kiila ma awoodayda intaas. xogayaha guud ee deegaanka Garisbaalley Musharraf Cabdi Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaankaasi Cabdullaahi Cabdi Maxamuud ayaa si wada jira waxay ula hadleen dadkaasi waxayna u sheegeen inay u baadigoobi doonaan awoodooda inta karaanka ah in ay caawiyaan dadkaasi. maamulka gobolka kan deegaanka ganacsatada wasiirada iyo dhammaan madaxda dalka ayay ka codsadeen in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkan. haddaan anaga maamulka Garisbaalley waxaan ku naalnaa horta marka hore meel wada oo jid ah oo wadada xamar oo dhan soo gasha. deegaanka Garisbaalley marka wuxuu halbowlo u yahay oo lafdhabar u yahay dadka soo barakacay ee ka yimid gobolada dalka Soomaaliya intooda badan. marka waana meel koona oo dadka markay magaalada soo galaan ay ka bilaabaan magaalo gelista. taasaa markaan ugu kaliftay inaan macnaha aan noqono meel macnaha hoy u ah dadka barakacayaasha ay iskugu yimaadaan. waxaan leeyahay walaalayaal dadka kani Soomaalida ah waa liitaan ma haystaan hoy musqulo ma haystaan meelay ku hoydaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan wax ay haystaan in la leekataan ma jiraan. waxaan leenahay dadka kan Soomaali meelay joogtaba dadkan in wax lala soo gaaro waa dad fara badan. Garisbaalley ku soo biireen asbuucyadan oo dhan way soo badanayeen. halkani waa kaamka Allafuuto oo ka mid ah kaamamka ku yaala deegaanka Garisbaalley. waxaa hadda soo gaaray in ka badan 800 oo qoys oo u baahan in la caawiyo kuwaas oo inta ay wadada soo socdeen qaarkood haweenka ay ku umuleen oo waliba kaamkan ay uga dhex saqiireen. hore waxaa kaamkan u joogay ilaa iyo 1,100 barakacayaal ah. waa gargaar ay dalbanayaan dadkan in la siiyo. xaaladoodu waa mid aad u liidato dhanka caafimaadka iyo nafaqada jirka ayaa ah mid saameyn ballaaran ku yeelatay intii ay soo socdaalayeen. deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo Baay ayay dadkan ka yimaadeen oo ay abaaro kululi halkaasi ay ka dilaaceen. xasan salaad xasan laki raadiyaha iyo telefishinka dalsan
deegaanka Garisbaalley gobolka Banaadir. kadib markii magaalada Garowe ee xarunta Puntland ay ka dhacday munaasabad weyn oo lagu caleemo saarayay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa munaasabadaasi oo kulmisay hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya waxaa la isweydiinayaa ahmiyadda ay u leedahay Puntland. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Garowe ka soo diyaariyay wariyaheena Cabdiweli Maxamed Sheekh. munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland waxa ay noqotay dhacdo xamaasad iyo xiiso ku reebtay dhagaha shacabka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. madaxdii iyo siyaasiyiintii ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka waxa ay ahaayeen kuwa u ka dhaxeeya loolan siyaasadeed iyo waliba khilaaf suurto gelin waayay in ay hal goob ka soo wada muuqdaan mar qura maadaama ay ku kala irroobeen dana siyaasadeed oo isdiidanaa. isuimaatankaasi wuxuu dhaliyay in madaxda Soomaalida ay soo helaan fursad ay ku kulmaan si ay u fuliyaan dardaarankii xoogganaa ee lagu siiyay goobtii xafladda caleemasaarka ay ka dhacaysay. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa fidiyay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo Soomaaliya taas oo ka dhalatay wadahadalkii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo waliba dawladaha xubnaha iyo waliba siyaasiyiinta xisbiyada Soomaaliya. anoo ku hadlaya magaca dawladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garowe. waxaan ku faraxsanahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya in kaalintaasi firfircoon ay u qaadato. waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dawladda Puntland u furan tahay ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda. haddaba warbaahinta dalsan waxa ay sidoo kale mikrofoonka la dhex qaaday qaybo kamid ah shacabka iyo waliba xildhibaano kamid ah baarlamaanka Puntland waxaan aan weydiinay ahmiyadda xafladda caleemasaarka iyo waliba in Soomaali badan ay Garowe isugu yimaadaan taas oo dhalin kartay fursad ay Soomaalida mar kale ku wada hadli karaan. waxaan jeclahay ama aan u arkaa inay tahay guul midnimo Soomaaliyeed. waxaan ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo isku duubni iyo walaalnimo iyo wada tashi iyo wada shaqayn iyo wixii khilaafka ah oo hore oo la daweeyo. waxa maanta noo dana innagoo isku duuban dib inaanu heshiino qarankeena difaacano. Soomaali weynay ma kala maaranno. ilaah baa iskeen baday. dawladda federaalku waa dalladii aynu harsanaynay. maamul goboleedaduna waa garbihi ay ku duulaysay dawladda federaalku. waxaa markaa loo baahan yahay inaan la iskhilaafin oo la wada shaqeeyo oo qolo walba wixii xaq loogu leeyahay laga helo. waxay muujinaysaa haddii aan koobo horta waxa Puntland inay maanta ay tahay guul iyo sharaf u tahay maadaama ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxdii Soomaaliyeed dhammaantood Puntland maanta waxa weeyaan ay isugu yimaadeen ama ay joogaan waxay u tahay sharaf weyn bay u tahay horta Puntland. halkaan waxaa laga garanayaa inay Puntland mar walba ay ahayd inay meeshii laga asaasi jiray ama laga asaasay Soomaaliya laga asaasay mar walba daacad u tahay ama isku dayso inay Soomaaliya ay u noqoto hormuud u noqoto. halkaan marka aan ka garanaynaa maadaama halkaan la isugu yimi oo madaxdii Soomaaliyeed oo dhan maanta iyo siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo runtii caanka maadaama aan cid ka maqnayn waxaynu dareemaynaa oo rajaynaynaa in meesha guuli ka dhalato Soomaaliya ay ku heshiiso magacanta la isugu saaro maanta kadibna aan arag wax khilaaf la arag. waa su'aal wanaagsan isku imaatanka sababta ay u ahayd caleemasaarka madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni waa isku imaatan looga faa'iideysan karo siyaabo kale oo badan. waxaan ogsoonahay in khilaafad yar iyo waxay ka dhex jireen dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe haddeerna ilaahay mahadiis waxaa la guddoonsaday cafis maaragta u dhexeeya in la iscafiyo waana tan khayrku uu ku jiro waana tan ilaahay cabsidiisa u dhow in dadku ay saamaxaan. Cabdiweli Maxamed Sheekh warbaahinta dalsan Garowe. qaar ka mid ah shacabka iyo siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa tallaabo ku dayasho mudan waxa ay ku tilmaameen martiqaadkii uu madaxweynaha Puntland Garowe ugu sameeyay hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya. haddaba dadka reer Muqdisho aaraadooda waxaa soo ururiyay wariyaheena Fartuun Cabdinuur Fartuun Qaran. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ku dirsadeen oo ah in meesha laga saaro madmadowgii siyaasadeed ee jiray
loona midoobo danta guud ee soomaalinimada lagula raadiyo si midnimo leh danaha soomaaliyeed ee hadda ka hor la dayacay. barnaamijkaas soomaalidu aad iyo aad bay habeenkaa u soo jeeday, waxayna u xiisaynaysay sidii ay hore ugu xiisayn jireen munaasabadaha waaweyn oo soomaalida lagu heshiisiinayo. gogosha la dhigay Garowe aniga waxaan u arkaa mid caleemasaarkii ka weyn oo midaynaysa soomaalida. yacni dad badan oo aan la filaynin inay isu imaan doonaan ayaa isugu tegey. waxaana ka rajaynaynaa guul dadka Soomaaliyeed ay isku afgartaan. iyo mar labaad iyo mar saddexaadba sidaan u malayn doono oo siyaasiyiintii iyo asagii iyo maaragtay dowlad goboleedyadii iyo maaragtay la isku wada yimid oo hal miis wax lagu wada cunaayo la wada qoslaayo oo la wada faraxsan yahay ayaa wax loo qaadan karaba ahayn. marka waxaan dhihi lahaa barnaamijkaas asaga ah waxaan maqli jiray ku dayo Puntland ku dayo waa ku dayo Puntland ku dayo waa sax waa in Puntland lagu daydaa because of intaas isu keentay tirada meesha waxaa leedahay barnaamij madaxweynaha la dooranaa waa kii runtii waa waxaan ku wada faraxsanahay haddaan anay mar shacabka Soomaaliyeed anigu fanaan Soomaaliyeed aan ahay ambiinchasta la yiraahdaa waan jeclahay yani wadankayga inuu ii hagaagsan yahay shacabkaana matalnaa naftirkan inkastoo fanaaniina shacabkaan matalnaa waxaan ku faraxsanahay aan aaminsan aan jecelnahay maadaama aan nahay anaga dumarkii iyo maaragtay haweenku waa iska taqaaniino nabaddaa u qayr badan. Soomaaliya burbur badan baa ku dhacay waxayna u baahnayd in dib u heshiisiin caalami ah la helo oo dadka la heshiisiiyo. Garowe waxaan oran karnaa waxay kulmisay sida aad sheegteen mucaarad iyo muxaafid oo madaxweynihii uu meesha tegey dad awal iskribin ay meesha tageen iscafiyeen oo islaamkii uu si fiican uga hadlay islaam ciise dadku inkastoo aysan ka leexan islaamka hadalkiisa oo ay raaceen haddana Soomaalida laablakac baa lagu yaqaanaa. waxaa la rabaa inaysan waxaas laablakac noqon oo waxaa hadda la sugayaa banooniga dhinacaanu jiraa marka dhinaca mucaaradka iyo kulligu ka yimid way isku yimaadeen dhinaca kale inuu banooniga ay ka iyagana ka darbeeyaan baa la rabaa waa aragtida dadweynaha. marar badan waxaa dhacday in madaxweynaha Soomaaliya uu isugu yeeray gobolada xamar in uu dhaco heshiis dhex mara dowladda iyo gobolada hase ahaatee way ku gacan sayreenoo waxay samaysteen urur iyaga u gaar ah oo Cabdiweligaas uu madax ka ahaa taasina madaxweynuhu kama harin mar labaad ayuu haddana isugu yeeray mana ayan imanin hase ahaatee waxaad moodaa kulankan Garowe la isugu yimid oo lagu doortay Siciid Cabdilaahi Dani inuu noqday kii isu keeni lahaa mucaaradka iyo muxaafadka. doorashada kursi ka banaanaa golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo doorashadaasi uu hareeyay khilaaf ka dhashay qaabka ay u dhacday doorashadaasi. wariyaheena Muqtaar Sheekh Aadan Dalmar ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo. kursigan xildhibaankiisa la doortay ayaa ah mid la isku haysto oo musharaxiinta ka qayb gali lahayd horay u qaadiceen kuwaas oo sheegay inuu jiro musuqmaasuq iyo ergeys dabamarin qaawan iyaguna ay si cad u sheegeen inaysan ka qayb gali doonin taasoo ay ka dhabeeyeen oo aysan maanta soo xaadirin goobtii ay ka dhicisay doorashada. Cabdullaahi Sheekh Maxamed Bakistaan oo ahaa musharaxa kaliya ee soo xaadiray doorashada guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka ay ku dhawaaqeen inuu yahay musharaxa buuxiyey shuruudihii loogu talagalay kuwa maqanna ay la mid yihiin balse maqnaashahooda aysan u xayirnaan doonin oo ay qabanayaan doorashada kursigan sida uu halkaasi ka sheegay sarkaal ka tirsan guddi qabanqaabada doorashada oo maqnaashahoodana sababeeyey. sidaasaan ku ballanay wuxuu yidhi waxaad igu tarisaan oo maslaxo ah oo dadkaygu ay isku ogol yihiin waan yeelay waan idinka yeelay maalintii ku laba ahayd 25 qof oo laga sugaayay oo beeshiisa ayuu keenay isla maalin habeenkaa la kulanay malaaqa maalintii ku xigtay oo isniintii hore ahayd waxaan u yeernay malaaq ku-xigeenkii oo qayb beesha ka mid a horkacay waxaan idhi waa idiin qaybinay
25-kana malaaqii 135 ku jiray oo xaqa u lahaa inuu 51 wada keeno ayaa keenaya 25-kana waxaan rabnaa inaad beeshaada ka keentid adiga oo dadkaaga iyo odayaashaada la tashanaya oo maadaama si isleeg aad u qaybsateen 25 adigu keen 25 ha keeno ii sheeg odagii kale ha keeno oo malaaqa ah fadhiga anagoo joogno nu gacan sayray wuxuu yidhi waa inaan 25-kaygana keenaa 25-ka malaaqa 135 ku jira aad keena tirahdeenna waa inaan aniga keenaa 51 waa inaan aniga keenaa ninkaasna waxba ma laha waxaan idhi walaalow sharcigu ninkaasu wax u ogol yahay annaga sharciga ma aanan soo qorin iyadoo keliya hal musharax goobta uu fadhiyo ayay guddiga bilaabeen doorashada iyagoona u sheegay ergada iyo korjoogtada ku sugnayd hoolka in doorashada ay bilaaban doonto laguna geli doono sida iyadoo 4 musharaxba ay joogaan ergadana ay saas ku codayn doonto ergada codaynaysay oo liiska ay qabteen guddiga ahayd tiradooda 44 ergo ayaa goobta waxaa soo xaadiray 42 ergo oo la garanaynin maqnaanshaha labada ergo ee aan soo xaadirin madasha ergada codaynaysay oo liiska ay qabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay ahayd 44 ayaa 2 ka mid ah ay maqnaayeen waxaana hoolka fadhiyey 42 ergo kuwaas soo codeeyey markii ergada ay codaysay la tiriyey codadkii ayaa sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku dhawaaqay natiijada codbixinta doorashada musharaxiinta wuxuu Abdullaahi Sheekh Maxamed meesha wada helay wada helay Abdullaahi Sheekh Maxamed wada helay Abdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur لما عد يا هلي حسن معلم إبراهيم والبم هلنا إسحاق خليف شيخ أفرعنا هلي العطف اللاوي لما قفنا ما بفقاب كان دورشنا مكوين معنا مكوين عدتي تاسميك هاين أفرك هاين أفرتني لما قفنا عديتي صدقني شان عد ميتا هلي عبد الله شيخ محمد وكيل 28 abriil sanadkii 2018 ayay ahayd markii kursigan uu ka geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan hore Khaliif Sheekh Cabdullaahi Duure oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya tan iyo xilligaasi kursigan waxa uu ahaa mid ay soo jiitamaysay doorashadiisa maanta ayayna dhacday iyadoo weli uu jiro isjiidkii ragaadiyay taasoo muujinaysay goobta doorashada oo ay ka maqnaayeen musharaxiintii la tartami lahayd Cabdullaahi Sheekh Maxamed Bakistaan oo ahaa musharaxa ku guuleystay kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan Burshawiinay Baydhabo Jinaay warka telefishinka dalsan ayaad la socotaan markaan waxaan eegaynaa dhinaca ciyaaraha wararkii ugu waaweynaa waxa soo jeedinaya Maxamed Daaq Cusmaan Cali wadmaasata xubintan ciyaaraha daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa xal waxa la ciyaaray 2 kulan oo ka tirsan koobka FA Cup sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalada La Liga iyo Serie A dalka Talyaaniga waxaan ku hormari doonaa kulamadii xiisaha badnaa ee koobka FA Cup ee wadanka Ingiriiska laga ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa ka cirib tirtay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur tartanka FA Cup kadib markii 2-1 ay ku dhufatay Tottenham Hotspur ayaa hadaba koobkii labaad ka haray 3 maalmood kadib markii horaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka reebtay koobka Carling Cup-ka daqiiqadii 9aad ciyaarahanka Connor Wickham lagu magacaabo oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa goolka koowaad dhaliyay qaybtii hore inta la kala marin ciyaarahan Towson ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1 sidaas ayaa lagu kala maray markii la isku soo laabtana isbedel muusan dhicin oo kooxda kubadda cagta Tottenham sidaas ayaa looga adkaaday naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Stamford Bridge ku soo dhaweysay kooxda Sheffield Wednesday ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xamaasad badan iyadoo wiilasha Blues gaaray koobka FA Cup-ka wareegiisa shanaad kadib markii 3-1 ay ku dhufteen daqiiqadii 26aad ciyaaraha reer Brazil ee William ayaa shabaka ka soo taabtay kooxda Sheffield 64 daqiiqo daayirka la cilaaya ee baxsadka ka garoonka Stamford Bridge
ee colom odson odaway ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1 laakiin ciyaaryahan William ayaa soo gabagabeeyay kaasoo ahaa daafurka goolasha ama ninkii u daafuray kooxda Chelsea oo goolka koowaad ee ciyaarta markaana daqiiqadii 83 ciyaarta waxa uu ka dhigay 3-1 sidaas iyo naadiga kubadda cagta ee Chelsea ay kaga adkaatay kooxda Sheffield Wednesday waxayna ku biirtay kooxaha waaweyn ee u gudbay wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka markaan horyaalka sare ee dalka Talyaaniga haddii aan eegno daawadayaal kulamadii xiisaha badnaa ee laga ciyaaray waxaa qayb ka ah kulankii kooxda kubadda cagta ee Juventus ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaartaas oo Juventus ay guul ay gaartay Cristiano Ronaldo ayaan u suurtageliyay in Juventus ay guushaas ay gaarto naadiga Verona ayaa soo dhaweeyay kooxda Fiorentina ciyaar ka dhacday guriga Verona kulanka ayaana ku soo dhamaaday 4 gool iyo 3 oo ay ku adkaadeen wiilasha martida ahaa ee Fiorentina Atlanta waxay 3-3 la gashay kooxda kubadda cagta ee Roma ciyaar ka dhacday guriga Atlanta Bologna iyo sidoo kale naadiga Fiorentina ayaa wada ciyaaray 4-1 Fiorentina ayaa ku adkaatay halka Parma iyo Spal 3 gool iyo 2 naadiga Spal ay ku adkaadeen Turin iyo sidoo kale Inter Milan ayaa wada ciyaaray ciyaarta waxay ka dhacday guriga Turin kulanka ayaana ku soo dhamaaday gool iyo waxba oo Turin ay ku adkaatay Inter Milan oo laga adkaaday laakiin kulankii ugu weynaa ee sida weyn Talyaaniga looga wada sugay wuxuu ahaa kii dhexmaray Lazio iyo Juventus ciyaar ka dhacday garoonka Olimpico oo Lazio ay ku ciyaartay kulanka ayaana ku soo dhamaaday 2 gool iyo gool oo wiilasha Bianconeri ay ku adkaadeen daqiiqadii 59aad ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool qadka dhexe ee Juventus Emre Can ayaa ciyaarta ka dhigay gool iyo waxba oo u suurtageliyay kooxda Lazio inay hogaanka ay qabatay kadib markii on goal ama goolasha iska dhaliska uu ka dhaliyay kooxdiisa Juventus laakiin 74 daqiiqo ciyaaryahanka Joy Gonzalo ayaa Juventus ciyaarta uga dhigay barbaro 1-1 ah intaan soo dhamaan ciyaarta oo daqiiqadii 88aad ciyaaryahanka heerka caalamiga ee Cristiano Ronaldo ayaa ciyaarta ka dhigay 2 gool iyo sidoo kale gool iyadoona sidaas Cristiano Ronaldo ugu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus gool kulaad waxaana Juve sidaas ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Lazio markaan daawadayaal ugu dambeyn haddii aan eegno horyaalka La Liga dalka Spain kulamo ayaa laga ciyaaray kooxaha waaweyn Real iyo Barcelona ayaa ciyaaray iyadoo Barcelona guul muhiim ah ay gaartay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadana guulaheeda sii wadata kooxda Valladolid ayaa soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ciyaar ka dhacday guriga Valladolid 2 gool iyo gool ayay ku adkaadeen wiilasha Real Valladolid Athletic Bilbao iyo sidoo kale Real Betis ayaa wada ciyaaray ciyaar ka dhacday guriga Athletic Bilbao gool iyo waxbana Athletic Bilbao ayaa ku adkaaday Real Sociedad iyo Huesca ciyaartoodu waxay ku soo dhamaatay eber halka Girona iyo Barcelona ciyaar xiiso badneed oo guriga Girona ka dhacday uu ku soo dhamaaday 2-1 oo Barcelona ay ku adkaatay daqiiqadii 9aad ciyaaryahanka Nelson Samed ayaa shabaqa ka soo taabtay kooxda Girona qaybtii hore sidaas ayaa lagu kala maray markii la isku soo laabtana qaybtii labaad naadiga Girona oo baadigoob ugu jirtay inay keento goolka barbara ayaa daqiiqadii 51aad waxaa kaarka roosa ka qaatay ciyaaryahanka Bernardo Español ciyaaryahanka lagu magacaabo 68 qanaliyo Messi ayaa ka faa'iideystay wuxuuna ka dhaliyay goolka labaad kooxda Girona sidaas ayna Barcelona ay 2 cad kaga dhigtay Girona oo ay wali u heesaa hogaanka horyaalka Liga iyo guulaheeda xiriirka ahi Espanyol ayaa soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Real Madrid kulan ku soo dhamaaday 4 gool iyo 2 oo ay ku adkaadeen wiilasha Los Blancos Real ayaa wadato guulaheeda xiriirka oo bariye ugu dambeeyay ku soo jirtay daqiiqadii 4aad Karim Benzema ayaa Real goolka koowaad u dhaliyay 15 daqiiqo Sergio Ramos ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1 ciyaaryahanka lagu magacaabo Baptista ayaa daqiiqadii 25aad ciyaarta ka dhigay 2 gool iyo gool inta la kala maray waa Karim Benzema ayaa ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo gool kadib markii daqiiqadii 45aad uu gool u dhaliyay qaybtii hore sidaas ayaa lagu kala maray markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ciyaaryahanka Reed Bell ayaa 67 daqiiqo ciyaarta ka dhigay 4 gool iyo gool ciyaaryahan Rafael Varane ayaa kaarka roosa qaatay daqiiqadii 72aad 80 iyo sidoo kale 1 daqiiqana Roberto Robles ayaa ciyaarta ka dhigay 4-2 oo ka tirsan naadiga Espanyol hal gool ayuu u soo celiyay sidaas ayna Real Madrid ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Espanyol iyadoo Real Madrid dhibaatooyin dhexda ka gashay kadib markii ciyaaryahan Sergio Ramos dhaawac looga dhex qaaday kulankaasi halka Rafael Varane uu kaarka roosaha uu qaatay sidoo kalena ciyaaryahan Carvajal ayaa isagana waa sheegi doona kulanka xiga ee Alaves ee la ciyaarayaan maadaama uu qaatay jaalihiisii shanaad ee xilli ciyaareedkan xubintii ciyaarahana daawadayaal waa iga intaa waa mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cusmaan Cali markaana wararka ugu waaweyn dhinaca dibadda madaxweynaha dalka Venezuela waxa uu ku dhawaaqay in uu dalkiisa ka badbaadin doono waxa uu ugu yeeray afgambiga uu Mareykanka gadaal ka riixayo madaxweyne Nicolas Maduro oo la hadlayay telefishinka CNN-ka waxa uu wacad ku maray in ugu dambeyntii uu ka guuleysan doono isla markaana uu dalkiisa ka badbaadin doono isku dayga afgambi ee dawladda Mareykanka oo ay taageerayso madaxweyne Nicolas Maduro oo la hadlayay telefishinka CNN-ka waxa uu wacad ku maray in ugu dambeyntii uu ka guuleysan doono
islamarkaana uu dalkiisa ka badbaadin doono isku dayga afgembi ee Mareykanku uu taageerayo. waxa uu intaasi ku daray madaxweyne Nicolas Maduro inuusan xiriir siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed la lahayn Mareykanka, isagoona gaashaanka ku dhiftay hadalkii ka soo yeeray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo, kaasi oo ku sheegay in dalka Venezuela uu yahay dal guul daraystay. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxa uu ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in hogaamiyaha mucaaradka ah ee Venezuela Juan Guaido Marcos ay u aqoonsadeen hogaamiyaha sharciga ah ee dalka Venezuela. warkii daawadayaal idinkaga imaanay telefishinka dalsan ee Muqdisho oo naga inta anigoo Firdawsi Saal ayaa wararka soo jeedinaya. warkiisa kale intaan dib u kulmaynana nabadgelyo. dalsan TV isha wararka sugan